بسم الله الرحمن الرحيم. آدي حافر حلوين إياه مقال كشرفت بدنا ماشي يقوم وغلا كذب هو مهد علين وحنا مهد علين يا جارهان جاليدي سوماليات أباب كان نوصل ميسي marka waxaan naga sugaayeen waxa weeye muxuu ahaa sababta loo abaabulay in la isugu yimaado muxuu ahaa habeenkan caawa meeshan in la isugu yimaado ra'iisul xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirada kale iyo mas'uuliyiinta sare safiirada ay ka mid yihiin ayaguna waa salaamaya kadib waxaan rabaa in yar in aan dawladdii markii dawladda la iyadahayo waa inay dawladdan inay wax sheegto weeye marka waxaan rabaa wax yar raadadkii dawladda inaan wax yar ka sheego muxuu ahaa waad ogtihiin burburkii buuxay oo taamka ahaa oo nagu dhacay Soomaaliya حتى دولتي هوسة دولة هوسة دولة واحد دوكومنتي وما تبغوا كرسونان كرينا ندرك كوهرين مرة أنت نقول على دبعتها سأل وينا سلامر كيبا وحكرت الصومالية ودياشي وحا ليسكت إن ما عرفت دولة ما تدبلو سعودية لكن واحد يقول بدني marka على حال markii dambe waxa lagu guuleystay Carta Djibouti inay martiqaad noo sameysay 275 xildhibaan in meeshii lagu soo xulay arinta iyada waxa laga yaabaa dad badan inay iska dhayirsanayaan oo Carta waxba loo arkin Carta waxa lagu soo sameeyay waxay ahayd raad dawladeed ah وإلى يومنا هذا حتى وحنا لو وقفت ضاد نشان حلبان وحنا كنت من عرضه واتي عندنا محوها نيروبي لسوء هذي ومدة أيضا مدة حوالها بدن أباب الأوكجري أيضا رشاد بحوها رنتي عرضه لو وقفت رشاد وهي لما بقولي تيار وحي لما بقولي لواتني شنتي عرضه لما بقولي لواتني تدوات نشان وحي تيم بقادي نيروبي وحوها راد دولديد أو كلا لقود ديان كلا دولدي هراء عرضه لقود سميه وحكذا دقات في عنايد تين دم نيروبي لقود سميه أيادينا واسود حب بوغني لكن واي جرتي واتي عندنا جيبوتي اللي سووا تيشان بقولي كنت اللي سووا سميه هذا تاريخ لرهين وحبا لكم مجوريسن كرا انت اصل التاريخ وي شن بقول لكم كنتم يهانكم بدنات خلاص بدنا اعطوا لكن مده يسو غارسي مده ابو في عم بهاي ارمي لا سو مري رود مابكي iyo shaqooyinkii la soo qabtay waad weydin garow halkan tag ahayd arimahaas waxay sabab u noqdeen maanta dawladda buuxda oo ku meel gaarka ka baxday waxa uu sabab ahaa muxuu ahaa raadadkii la soo maray tii Carte tii Djibouti tii kale muxuu ahaa in bagaadi ka sii horeysay inta marka la isku daro waxay nagaarisay in la yiraahdo dadkan waxoodi way wataan waa dad gacan u baahan marka ha ka baxin ku meel gaarkii خاصة دولتي محوها ودن بيسي وحن مرين بدبادة إن الشقة بدنا بدنا بيسوق بطي كنت واحد بوفاني كرواتن ما أنت أنجوبنا تم شيء وي وحافظ عن إلا حسوس تقول له قال بقى تاريخ هذا أنا وين وحاول واحد قبسني سنة ما وين تينا هذا جرتا أيضا هذا حل قارة سارن محوها إن ما دام اللي يري كمرجارك ولا قبح قوس ولا هري اللي يري وإن لو فرع ذيقا ومحوها سعد لعانا يكرتيه فنان يكجرته إن ما عرفت له دعنت له وهي لونه كبعيد وحندين شيء يا واحد بدنا نعدام بعد مرة قال دقيقة نكمل لسان لكن هذا هو العنا وحنا وحويه وحلا إلى هذا evolution بل إلى هذا
meel baa laga tallaabsanaya meel kale la gaaraya qalad baa la galaya waa laga baxay meel kale la tagaya mooshin baad maqlaysaa waxaas kulli faa'iido ku wada jirta hadda waa la mid baa jiray waxa laga yaabaa in caadfad badan ay jirto aad loo naco ma hadda uu dhamaaday kii asaga waa wanaag baa laga gaaray marka waxa weeye marka qaar waxyaabaha nacabtiina noocaas aad maqlaysaan laakiin waxa weeye dadkii idinkaa doorateen oo meel geysateen waa dad jira idinkaa doortay dad la'aan lama ahaan kara waa in wax la doortaa waxna ay jiraan waa qasab marka ma wada xumo dadka xildhibaanada ma wada xumo xukuumadda ma wada xumo dad mana wada fiicna dadku marka muxuu ahaa midaan maaragtay waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo waa dhaweyd dhaqdhaqaaq baa naga jiray oo dhinaca maaragtay siyaasadda ah dhaqdhaqaaqaas isaga ah sidaan hadda hore ugu sheegay waa maaragtay in aad loo naca ma fiicno aniga xukuumaddan ka tirsanahay waa dhibsanahay inuu jiro laakiin waxaan ogahay inuu faa'iido yahay maxaa yeelay waa wuxuu naga celinayaa dhib kaloo imaan lahaa buu naga celinayaa waa la bartay waa la ogaaday taxadar baa laga qaatay intaas kadib muxuu ahaa wasiiraddeena sharafta leh muxuu ahaa nadiifo xogaa waxay ka warbixisay wasaaraddeedii aniga wasaaradda oo dhan baan muxuu ahaa ra-iisul wasaare ma ahayn laakiin mar waxaan u ahaa xisaabiyaha guud ee qarankaan ahaa ilaa muddo 8 sano ah wixii jiray oo dhan aad baan u wada ogahay waa jiray ilaa haddana wasaaradda maaliyadda jooga wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda waxaan idiin sheegayaa maanta dowladdeena inay gaartay in lagu kalsoonaan karo dayn la siin karo muxuu ahaa deeqna la siin karo yaan idiin sheegay farxaddaas waa idiin sheegayaa waxaana jeclahay inaan sii kordhino haddii ilaahay yidhahda arrinta iyadaa la sii wado wax badan oo aad jeceshihiin insha allahu tacaala waad arki doontaan waxaan idiin sheegayaa shaqaale socdo oo lugaynaya baabuur soo raacay oo aan soomaali ahayn baa hadda xamar nala jooga oo shaqo doon ah soomaalina aan ahayn qaar badan oo ayaga ka mid ah shaqo heleen qaar kalena ay ku leeyihiin soomaaliya shaqaa ka jirtaa la yidhi muxuu ahaa waxaa la yidhi mudana soo koob laakiin inaan aad soo koobo ma rabo waana soo koobaya marka calaahi tacaala waa soo koobayaa niyaddiina khayr u sheega dalkiina soomaaliya idinkoo faraxsan baad tegi doontaa haddii ilaaha yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu